سؤالها إنه سوق عليه وحكم ذا قفقة وحد له يسي عمدي يبرير وحد له إلا قصاصه هدوتو قيامها ما الله عقابيا أما الله قبصانيا مثل السداس أي دنبغا مركز قفكاسي oo galay oo kaga mayrmay oo wax dambo laga weydiinaya ma jirto culimadu waxay tilmaameen masaladan markay ka hadlayeen qofku marka uu wax dilo ee si camdiye bareera uu dilo xaq darra iyo cudwaan qof uu ku dilo waxa qofka ku tacalluqaya ama la xiriiraya saddex xaq midi waa xaqii ilaahay oo dee nafu ilaahay abuurtay oo dilkeeda uu xaaraantinimeeyey oo aanu u ogolayn ayuu qudha ka jiray oo uu dilo halkaa xaq ilaahay uu intihaag iyo markaa meel ka dhac ku sameeyay ayaa ku xurmaya midna waa xaqul waliyi dadkii xigtadiisa ahaa ee garabka iyo gaashaanka u ahaa uu ka tirsanaa ee uu markaa iyagana ka saaray kaasina waa xaqay leeyihiin midna waa xaqul maqtuul almadluum qofka uu dilay ee uu dulmiyey waa xaqiisii saddexdaa xaq ayaa meesha ku tacalluqayo qofka horta ku xidhan hadda waxay leeyihiin culimadu hadduu qofku toobad keeno tawbatan nasuuxatan hadduu toobad keeno toobad runa hadduu toobad keeno falkaa uu geysay uu ka murugoodo yacni dib inaan ugu noqonayna uu goosto nafdiisana uu soo dhiibo oo ciddii markaas uu wax ka dilay xigtadeedii iyo warafadii iyo dadkii dhiigga lahaa uu isu soo dhiibo waxa weeye haddii markaa xaqii ilaahay horta wuxuu ku dhacayaa waa kii koowaad ee towbaddaa uu toobad keenay ee weliba dee ficilkeediina raaciyay uu isu soo dhiibayna markaa ciddii wax ka dilay halkaa xaqii ilaahay waa kaga dhacayaa xaqii ciddan uu wax ka dilay ee markaas iyaduna awliyaa ahdahayd xaqoodii ayadan wuxuu ku dhacayaa inay qisaastaan amaba ay ma ka qaataan amaba ay cafiyaan saddexdaa hadba tii ay yaraana kuwa xaqooda waa kaga dhacayaa waxa ku haraya un markaa xaqii qofkii maqtuulka ahaa ee uu dilay ee uu adduunyada dhaafiyey kaana xaqiisa waxaa la yidhi markuu labadaa xaqee kale ka soo baxo ee ilaahayna si dhaba ugu toobad keeno dadkaana isku soo dhiibo xaqaa saddexaad ee qofka uu dulmiyeyna ilaahay ayaa markaa isagana ka gudaya oo maalinta qiyaamaha saddexdaa xaq midna loo qabsan maayo laakiin haddaanu toobad keenin haddii isagoo fakanaya markaas dee lasoo qabto saa lagu qisaasto amaba sidaaba dee uu ku fakado oo aan waxba markaa loo geysanin waxa weeye saddexdii xaqba waxa weeye waa sugayaan oo haddii markaa la qisaasto xaqii dadka awliyada unbuu ka dhacayaa xaqii ilaahayna meesha waa u yaallaa oo dee kamuu toobad keenin xaqii markaa qofkan uu dulmiyeyna isagana meesha waa u yaallaa maalinta qiyaamaha labadaa waa loo qabsanaya